maanta waxaan doonaynaa inaan warbixinada ka siino sida uu socdo qabanqaabada shirka golaha dhexe ee xisbiga wadani oo ah shirkii golaha dhexe labaad laguna qaban doono insha Allah gobolka Togdheer degmada Burco hoteelka Kaafi 28 bisha iyo 29 bisha qabanqaabadiisi waxay u socotaa si fiican waxaana laga dareemayaa gobolka Togdheer oo ahaa gobol dadkii degi jiray ay kaba tagaan markii hore maanta culayska saaran waa la dareemayaa suuqyada hoteelada meheradaha xisbigu si runtii ah mas'uuliyiintu xisbigu iyagoo danaynaya dadkooda iyo magaaladooda iyo karaamada iyo dhowrsanaanta waxay joojiyeen soo dhaweyntii iyo in dadku isu soo baxo dariiqyada la maro waxaanay u tureen dadkooda inay bacadka soo tubaan si yar ayay ku imanayaan shirkuun bay haddii alla idinka dhigi soo qayb galayaan waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha gobolka Togdheer ee ay u badan yahay taageerayaasha xisbiga wadani waa la ogyahay gobolada waa lagu tartamay nin walba tiradu haysto uu yaqaanaa gobolka Togdheer inay wadani ugu sarreeyay waa la yaqaanaa qoyar noo dhiga horeynu u tartanay horaanaynu u badinay waxaan leenahay inoo ilaaliya nabadgelyada magaaladan ayaan jaam laga dhigin taa waxaan u direynaa dadweynaha waa baaqaan u direyno marti sharafta insha Allah maalinta ay tahay bishu 28 way idinku soo dhaweynaynaa waana ka soo qayb gali doontaan insha Allah waana shir aad iyo aad dadweynaha reer Soomaaliland ee goboladu gobolka Sanaag gobolka Sool gobolka Saaxil Marwada Jeex